golaha dhexe ee xisbiga dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay Mustafa Maxamed Cumar u doortay inuu noqdo madaxweynaha kumeel gaadhka ah ee uu yeelanayo maamulkaasi. Waxa uu xilka kala wareegayaa madaxweynihii hore Axmed Cabdi oo dhawaan xilkaasi kumeel gaadh ah isna loogu doortay. Madaxweynaha cusub ayaa hore ugama tirsaneen xisbiga dowladda deegaanka, sababta keentay in qof aan hore xubin uga ahayn xisbiga loogu doortay inuu noqdo siihayaha jagada madaxweynaha ayaa maamulka deegaanka ayaa madaxweynihii hore uu ku sheegay waxa laga fogaanayaa buuri inuu burbur ku yimaado xisbiga. Haddaba madaxweynaha cusub waa nin caynkee ah. Waxaan goor dhaweed kula hadlay Bashiir Yuusuf Faarax oo jaamacadda Maastricht University ee Netherlands ka tirsan khadka Skype-ka. waxaanu madaxweynaha hore la soo shaqeeyay Cumar waa nin aqoon-yahana leh waayo aragnimo iyo maaragtay aqoon kala duwan oo khibrad iyo waayo arag isugu jirta maxaan dhahdaa dowladeed iyo mid hayadeedba. waa nin jecel afkaaro kala duwan in danta ummadda lagu eego siyaabo kala duwan looga hadlo. sidaas oo jirta iyo kartida iyo aqoonta iyo hawlkarnimada uu Mustafa leeyahay lama oran karayo keligii baa dadka dhibka ka saari karaya. wuxuu u baahan yahay garab qabasho weyn, wuxuu u baahan yahay in la garab istaago. haddaba waxaa istuudiyaha ila jooga caawa Maxamed Xaaji Ingiriis oo arrimaha gobolkaasi aad ula socda. maxamed ku soo dhawow BBC-da. maxamed, madaxweyne cusub baa la doortay, madaxweynihii horena kumeel gaadh buu haween ognahay. maxaad ka filaynaa madaxweynahan cusub inuu ku soo kordhiyo markaad eegto xagga nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta siyaasadeed gobolkaasiba? maxamed bidaan aad u mahadsan tahay. Mustafa waa ninaan isnaqaano si professional iyo intellectual labadaba. nin aqoon-yahana oo weyn mutacalimiinta gobolka ugu waaweyn ka mid ayuu ahaa. muddo dheerna ka soo shaqeeyay gobolka ka hor intuusan u wareegin UN-ta. waxaan filaynaa waxa ugu weyn uu samayn doonaa inay tahay horta sidii loo abuuri lahaa gobolka looga abuuri lahaa xasilooni siyaasadeed, nabadgelyada loo dejin lahaa, xasaradihii dhacay loo qaboojin lahaa. wuxuu dhaxlayaa xaalad aad iyo aad u adag oo ay adkaanshaheedu aad u fara badan yahay. waxaa ka mid ah dadkii oo aad u kala qaybsan gobolkii, ku kala qaybsan qabiil, ku kala qaybsan siyaasad, nabadgelyadii oo meelaha qaar faraha ka baxday. waana wax caadi ah oo meel walba adduunka ka jira. meel Afghanistan, Ciraaq, meelo badan oo qalalaasuu ka dhacay, qaramadooduna burbureen, Congo, Sierra Leone, Liberia, meel walba. meel xukun dictator ah oo kaliya taliya ah oo dadka caburinaya uu ka jiro. mar allaala markuu meesha ka baxo waxaa luma sharciga kala dambeyntii. waan gartay maxamed. maxamed Xaaji Ingiriis waad ogtahay imka durtaba tallaabooyin buu maalintii horeysaba qaaday. calankiiba wax laga bedelay, magacii gobolka la bedelay. arrimaha iyaga ka waran sidee kula muuqdaan? tallaabo weyn oo dadka isku soo dhaweynaysa ayay u muuqataa. tallaabo midaynaysa Soomaalida gobolka ayay u muuqataa. waxay tahay tallaabo dhiirigelin doonta dadku wax ay wada leeyahay inuu meesha ka dhismo oo dadka Soomaalida gobolka ku nool ay u wada arkayaan waxay isla leeyihiin national belonging, wax qarannimo ay ku wada midaysan yihiin. laba week ka hor usbuuc ayay ahayd markii si public la aniga laftirkayga aan u qoray in gobolka Soomaalida Itoobiya yahay gobolada Itoobiya oo dhan gobolka xisbigiisa la raaciyo Itoobiya, Soomaalida Itoobiya, halka gobolada kale aysan saa jirin. waan gartay waxaan ku soo gabagabeynay maxamed doorashada waxay dhacaysaa 2020ka miyo mustaqbalka sideeba kula muuqdaa doorashadaas inay dhacayseen kale? doorashada dhacaysa waxay ka dhacaysaa gobolada Itoobiya oo dhan, wax gobolka kaliya saameyn ku leh ma aha. waxay qayb ka tahay dadaalada iyo isbedelada uu la yimi ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy Ahmed. taas ayaa gobolkuna la jaan qaadi doona. Mustafana yahay ninkii jaanqaadkaas u saldhigi lahaa oo qaadi lahaa. waad mahadsantahay aqoon-yahan Maxamed Xaaji Ingiriis oo inooga warramayay xaaladda gobolkaasi.